Bismillah, hore waxaan usoo hadalnay casharadeenii wujidka iyo flutter introductionka. Hadda waxaan u guda galaynaa layout wax la dhahayo. Marka layoutka flutter waxay isticmaashaa wax la dhahayo layout si oo UI qurux badan loo sameeyo. Marka shay walba wax buu leeyahay, meel buu leeyahay, qaab buu u shaqeeyaa. Marka container oo hadda halkaan aan ku haysanaa waxaan haysanaa row, column iyo icon iyo text. Flutter layoutna waa intaas oo keliya, wax soo saddexii ma jiro. Marka container oo ka bilaabanaa container hadda waxa ugu jiro row soo dhexgelaya, rowgan waxaa soo dhexgelaya column, columnkiya wuxuu u kala baxayaa icon, container iyo text. Marka containerkan waxaan oo dhan isku hayaa ilaa iyo textiga ilaa iyo rowga isaga ku jiro. Containerkan kalarkii la siiyaa ayaa kuwan wuxuu noqonaa backgroundkooda. Marka containerkan waxaa ku dhex jira row wuxuu u shaqeynaa sida 1 2 3 isku dhex yaalaa saddexda column kala rowga ku dhex jiraan. Marka rowga sidaan u shaqeeyaa, columnkana sidaan. Marka wax text inaad qortid aad rabtid, intana icon aad dhigtid, intana button aad dhigtid aad rabtid, waxaad isticmaalaysaa row. Haddii sidaan inaad u shaqeydid aad rabtidna container inaad abuurtid, text aad dhigtid, icon halkaan aad dhigtid, marka waxaad isticmaalaysaa column. Marka hadda sida ujeedid rowgan waxaa ku dhex jiro saddex column oo dhinac taalo. Columnkii waxaa kusii dhex jiro container oo sida ujeedno containerkan iyo waa is wataan iyo iconka oo containerkan iconka ku dhex jira. Iconkan containerkan waxaa hoos yaalo qoraal. Marka layout sidaan camal ah ayaan dhisi doonaa step by step cashirka xiga.